Salaamu calaykum caruurey, soo dhawaada. Sheekadeenan maanta waxay ka sheekaynaysaa wiil la yidhaahdo Axmed Deeq. Axmed Deeq wuxuu ahaa wiil yar oo ku noolaa guri aad u qurux badan, hooyadii iyo aabihiina la noolaa. Gurigaasina wuxuu u dhowaa badda. Wiilkii yaraaye Axmed Deeq caruurey wuxuu ahaa wiil yaroo been badan, saaxiibadii been u sheegaa, hooyadii iyo aabihiina been u sheegaa. Axmed Deeq wuxuu moodayaa beentu inay tahay wax wanaagsan oo xaraabana laga helo oo lagu qoslo. Mar walba uu been u sheego dadka, Axmed Deeq wuu ku qosli jiray isagoo xaraabo ka dhiganaya iyo ciyaar. Hooyadiina mar walba wuu u sheegi jirtay inaanay beentu wanaagsanayn oo uu iska daayo beenta, ilaahayna inuu ku ciqaabayo beenta, inay beentu xun tahay oo uu iska daayo beenta ayay mar walba hooyadii u sheegi jirtay, laakiin muu ahayn mid maqla hadalka hooyadiis. Wiilkaygii Axmed Deeqow, been ha sheegin, waayo beentu waa xaaraan, ilaahayna wuu kugu ciqaabayaa. Been ha sheegin hooyo, runta sheeg. Laakiin caruurey, Axmed Deeq mar walba wuxuu ahaa mid been sheega. Inkastoo hooyadii ay ciqaabi jirtay, laakiin muu iska daynin beentii. Maalin maalimaha ka mid ah, hooyadii Axmed Deeq wuxuu yidhi, hooyo ii fasax aan ku soo badaasho biyaha, maadaama meesha lagu badaasho ee badda ay u dhoweyd. Hooyo, ii fasax inaan tago meesha lagu badaasho. Ii fasax hooyo, ila soo badaasho ayaa rabaaye. Hooyadiina waxay tiri, waayahay inankaygii Axmedow, soo badaalo, laakiin meel kale ha tegin, ama meesha lagu badaasho meelo ka fogfog ha tegin hooyo, waayo waan kuu baqanayaa. Waayahay hooyo, macaan ma dhaafayo meesha lagu badaasho, mahadsanid. Caruurey, Axmed Deeq baddii ayuu tegay meeshii lagu badaalanayay, waanuu maqlay hooyadii oo meel ka fog muu tegin meeshii badaasha. Laakiin fikrad xun ayaa ku soo dhacday. Sidii mar walba uu samayn jiray inuu been dadka u sheego, ayuu go'aansaday inuu dadkii meesha joogayna been u sheego isagoo ka xaraabaysanaya. Biyihii ayuu galay. Yaawiya, 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 waan qarqoomay, biyihii way qaateen. Yaawiya, waan qarqoomay. Caruurey, dadkii way naxeen. Xaggii wiilkii yaraa bay u carareen si ay u soo badbaadiyaan, laakiin wiilkii yaraa wuu qoslay, wuxuuna yidhi, waan idinka xaraabaysanayay, biyihii qaatay ma jiraan, biyaha ku qarqoomayna ma jiraan, idinka ayaan idinku ciyaarayay. caruurey, inankii yaraa Axmed, dadkii way ka xanaaqeen. Waxay idhaahdeen, waa maxay wiilkan beenta badan? Caruurey, Axmed yarana wuxuu ahaa mid xaraabo ka dhiganaya waxaas oo ku qosqoslaya. Maalintii labaadna hooyadii ayuu ka soo fasax qaatay, baddii ayuu imi, sidii oo kale ayuu dadkii ku sameeyey, isagoo ku qosqoslay markii ay soo badbaadiyeen oo idhi waan idinku ciyaarayay. Dadkiina sidii oo kale way ka xanaaqeen. Caruurey, wiilkii Axmed Deeq dadkii oo dhan dhexdoodii wuxuu ka noqday caan, iyadoo dadkii oo dhan u garanayaan wiilkii beenaalaha ahaa. Waayo markii koowaad maaha, markii labaad maaha, markii saddexaad maaha ee uu dadka ku idhi i badbaadiya, isagoo ka xaraabaysanaya beenna ay ka tahay. Maalinkii afaraad caruurey, wuxuu galay Axmed Deeq biyihii, isagoo isla sidii oo kale dadka uga xaraabayso. 3 jeeree hore ee uu dadka ka soo xaraabaystay ayuu islahaa maantana xaraabo kale ku day oo ku ciyaar dadka. Laakiin markuu biyihii galay, mawjadihii biyuhu aad ayay u kacsanayeen. Inankii yaraana biyo badan ayaa ka hor imi, oo si dhab ah ayay biyihii u qarqiyeen. Isagoo baqaya ayuu idhi, caruurey, dadkiina qofna umuu kicin inankii yaraa, qofina umuu tegin, waayo waxay moodayaan inuu sidii uu beenta u sheegi jiray haddana uu been u sheegayo
oo uu rabo inuu ka xaraabaysto dadka waaweyn. Umay tegin dadkii, isagiina biyihii ayuu marba ku hafanayaa. Laakiin carruurey, nasiib wanaag, waxaa jiray nin taagnaa meel u dhow biyaha rogmanaya. Carruurey, ninkaasi wuxuu arkayay inay badda mawjadaheedii kacsan yihiin oo biyuhu islaba rogayaan. Waxaanuu arkay inanka yar ee biyuhu ay qarqinayaan. Si dhaqso ah ayuu u baxay oo uu biyihii u galay si uu u soo badbaadiyo. Inankii yaraa markuu u tegayna wuu soo badbaadiyey, laakiin isaga oo suuxsan oo biyihii ka dhargay, biyihii calooshii ay u galeen. Kadibna wuu soo qaaday meeshii dadku ay joogaan ayuu keenay. Carruurey, dadkii oo dhan waxay ogaadeen markan in si run ah Axmed yare u qarqoomay. Markii uu lahaa i badbaadiyena ayna ciyaar ka ahayn oo ay runtii ahayd. Axmed yarena indhihii ayuu kala qaaday, isaga oo arkay in dadkii oo dhami ay dul taagan yihiin, biyihiina ay ka soo bixinayaan. Dadkii oo dhan wuxuu ku yidhi, waan ka xumahay, iga raali noqda, qalad ayaan idinka galay. Beentii aan idin sheegi jirayna waxay sababtay inaan maanta ku dhiman gaadho, aniga oo ka dhigan jiray ciyaar iyo xaraabo. Laakiin qalad weyn ayaan galay. Beentuna ma wanaagsana. Dadkii oo dhanna hadda beenaale ayay ii barteen, laakiin hadda kadib been ma sheegayo. carruurey, Axmed Deeq wuxuu bartay inay beentu xun tahay, oo qofka beenta sheegana uu halaagsamayo adduunka iyo aakhiraba. Carruurey, Axmed yare wuxuu beenta ciyaar ka dhigtaba. Markii dambe isagoo si run ah u dhiman gaadhay, oo dadkiina ay moodayaan beenaalana ay u qaateen, waa ka Alle badbaadiyey subxaanahu wa tacaalaa, una diray qof arka oo badbaadiya. Carruurey, inaguna waa inaynu baranaa inay beentu xun tahay oo inaan marnaba sheegin beenta, waayo dadka beenta sheega dhibaato badan ayay la kulmaan.